taariikhdu tahay 11 Oktoobar 2025 baarlamaanka tobnaad kalfadhigiisa toddobaad kulankiisa saddexaad ee gabdhaha maanta waxbaritaanka aayadaha qur-aanka kariimka ansixinta ajendaha ansixinta guddiga madaxa bannaan ee xuquuq insaanka wadada guddooda qorankeena maanta waa 143 waxaa rabaa haddana ogolaatay inaan u yeero xildhibaan Sharawiis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شكرا. سيدنا رسول الله بدون سيرو على نبوة فاعلة قرآن كريم تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بدون كي تبارك والسلام القرآن محسن عايزين نعمل صحيح الآن وسلسلة في آلة مع سنتين يا وزير بيلا والبحر هذا الصوت مدن قدرني اللي أنا شافته له قال شعبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول له رسولها أمة إن الله مسكين جالسية سكوسو جالسية مالين حلقة تاريخية أنا يوقعها بعد ما العوزات وكل سلوك ما تقوم بالإنسان ما أنت عالم كيف نبدأ السبوع لما يستلك الجدجان ويوشيسي إن المدو أهل سوسو في كذب بوشا سومالي يكون هذا المعرين كواجبات كذا كرم iyo arrimaha xuquuqda insaanka golaha xuquuqda insaanka qaramada midoobay ayaa u meelmarisay qaraar la 8 Oktoobar 2025 ayagoo si aqliyad leh dib ugu soo celiyay mas-uuliyadda Soomaaliya
kadib dadaalo diblomaasiyadeed oo xoogan aan hormuud u ahaa mudan guddoomiyey iyo marweye maanta waxaa u xaqiijinaynaa ummadda Soomaaliyeed hami ee naga sugaayeen tali iyo markii xorriyadda qaadanay hamigaas oo ah helitaan hay-ad si dhab ah u difaaca xuquuqdooda kor u qaada cadaaladda una hubisa in qof walba uu ku noolaan karo sharaf sinaan iyo xaq dheer buuxa sida ku xusan dastuurka iyo mabaadi'da caalamiga ah ee xuquuqda insaanka mudan guddoomiyey iyo mudanayaal maanta waxaa dhammaystiraynaa geedi socodkii dheeraa oo loo soo maray dhismaha guddiga waxaa la soo bilaabay habraac ku dhisan daahfurnaan iyo hubinta kartida khibradda iyo hufnaanta musharaxiinta si waafaqsan qodobka 8, 15 iyo 16 ee sharciga nambarka 16/2016. Tilaabadan waxay tusaale u tahay sida dowladda ay uga go-an tahay dhismada hay-adaha madaxa bannaan ee ilaalinaya xuquuqda xorriyaadka iyo mas-uuliyadda dowladnimo. mudan guddoomiyey xildhibaano sharafta leh waxaa halkan idinkugu soo gudbinayaa magacyada liiska gaaban oo musharaxiinta golaha xukuumadda ansixisay 3 Julaay 2025 kuwaas oo ka kooban 9 xubnood oo kala ah 1 Dr. Maryam Qaasim Axmed 2 Faadimo Cabdiqani Yuusuf 3 مؤمنة الشيخ عمر 4 محمد هارون محمود 5 أحمد شيخ حمزة أبشر 6 دكتور عمر عبد الله عوسو 7 دكتور محمد عثمان محمود 6 فرحان محمد جمعالي 9 علي محمد علمي waxaa ku kalsoonahay in guddiga madaxa bannaan ee kaalin mudna ka qaadan doonaan ilaalinta xuquuqda shacabka la xisaabtanka hay-adaha dowladda iyo bixinta talooyin horseeda dib u habeynta sharci bulsho iyo nidaam dowladnimo. wasaaradoodu waxay sii wadi doontaa wada shaqaynta dhow ee aan la yeelanayno guddiga ayadoo la ilaalinayo madax bannaanidooda. ugu dambeyn mudan guddoomiyey xildhibaano sharafta leh waxaa si xushmad leh idinkaga codsanayaa inaad waajibaadkiina dastuuriga ah ku gudataan islamarkaana aad kalsoonihiina siisaan guddiga madaxa bannaan ee xuquuqda insaanka qaranka maanta si aynu wadajir ugu dirno fariin rajo iyo kalsooni leh oo ku waajahan shacabka Soomaaliyeed. kalsooni siinta guddigan waxa ay diri doontaa fariin ah in dalkeenu leeyahay hay-ado dhab ah ee hadda wixii ka dambeeya difaacaysa xuquuqdooda islamarkaana u taagan ilaalinta cadaaladda sharafta iyo karaamada qofka Soomaaliga ah. waxaa idinka rajeynayaa inaad kalsoonihiina siin doontiin. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.